بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم magacay waa Shaafi Axmed Saleebaan ku magac dheer Ciise Godan insha Allah caawa taariikhdu tahay afartii bishii saddexaad 2016 waxaan isku dayayaa haddii Ilaahay yiraahdo video yar oo kooban oo runtii aan u arkay inuu faa'iido leeyahay dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee xiiseeya waxbarashada sidaynu ka war hayno ama aynu ognahay sanadii waxaa la furaa deeq waxbarasho Turkigu furo loo sanadlaha oo adduunka dhan ugu furan Soomaaliduna ay ka mid tahay horey arday Soomaaliyeed uga faa'iideysteen sanadkan waa la furay bishii 29keed waa la furay ilaa haddana way furan tahay waxaana la xiri doonaa haddii la yiraahdo 31 bisha marka waxaa ila muuqatay inaan video yar uu duubo qaabka loo xareysto waxaana taa u kaliftay iyada oo laga bedelay qaabka loo xareyn jiray sanadkii hore dhisaynkii la bedelay iyo qaabka loo xareyn jiray marka haddii Ilaahay yiraahdo taasaba sabab igu noqotay inaan duubo iyadoo ardayda ka faa'iideysan karayaan ham noqdeen arday degree master doctor marka fadlan videogan daawo haddii aad daawatidna u sii gudbi haddii Ilaahay yiraahdo dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta joogaan insha Allah waynu bilaabaynaa haddii Ilaahay yiraahdo waxa muhiim ah markaad intaadan bilaabin inuu mobile computerka uu ku xiran yahay internet waxaa kaloo muhiim ah inaad isticmaashid browserada sida Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer waliba kuwii ugu dambeeyay noqdaan waxaan aad kugula talinayaa ama iyaguna aad dadka kugula talinayaan inay isticmaashid Google Chrome insha Allah waan bilaabayaa waanu furaynaa Internet Explorer markaan furno website-ka laga galo Turkish Scholarship baan gelayaa waxa weeyaan www.turkiyabursalari.gov.tr website kale oo been abaa jira laakiin kaas abaa kii runta fadlan yaanan ku khaldamin وفرمانيا markuu saa usoo furmo waxay ku sadgaraysan tahay luqadda Turkiga marka haddaad luqadda Turkiga taqaanina waad ka sii wadan kartaa haddaad luqadda Turkiga aqoon halkan waxaa ku taala luqadda Ingiriiska u bedel markaan saa u bedelno inta aynan bilaabin xareynta halkan waxaa ku taala waxaad ku arkaysaa halkan apply now hadeer dalbo marka inta aynan apply now aynan dhihin waxaan ogaanaa bal maxaa la iga baahan yahay intaan xareynin marka sawirkan yar baan ku dhufanayaa si uu ii tuso waxyaalaha laga baahan yahay okay halkan English fara badan baa ku yaala waqtiga oo yar awgid Englishka si akhrimaay inta ugu horeysa baan akhrinayaa oo yar muhiim inta ugu horeysa waxa weeyaan wuxuu bilowday Turkish Scholarship 29 bisha wuxuuna xirmanayaa 13 March 2016 application kani waa online waana free bila lacag weeyaan hadii la dhaho lacag ba laga qaadanaya fadlan ka digtoonow application kani waxa kale oo muhiim ah in uu yahay online aan gacanta laga dhiibi karin tusaale ahaan safaarad lama geyn karo postina lama geyn karo inta dhan marka soo akhriyay halkan waxaa ku arkaynaa scholarship Turkigu muxuu ka fargareynayaa haddaad ku guuleysatay insha Allah maxaad helaysaa lacag gaaraysa 600 oo taalo undergraduate ka ardayda degree-ga iyo 600 oo taalo oo ardayda masterka iyo 1200 oo taalo ardayda doctorada ama PhD-ga waxbarashadu waa bilaash iskoolka ama jaamacadda hadba sida uu tiraahdi hal sano luqadda Turkiga loo barayaa meel lagu degtidna waa lagu siinayaa tigidhkana waa laga bixinayaa caafimaadna waa leedahay halkan waxay gaar u tahay ardayda Suuriyaanka yaa awood u leh ama eligible ah inuu dalbado ardayga raba inuu degree dalbado shuruudaha laga doonayo waxa kamid ah inuunan ahayn arday Turki u dhashay inuusan halkan ardayda inagu Soomaali baan nahay ama dadka ardayda dadka Soomaaliga ku hadla sida Djibouti NFD kuwaas oo dhan maaha Turki halkan waxa weeye ardaygu inuuna ka register-gareysnayn jaamacadda Turkiga ardayda Soomaaliyeed jaamacadaha Turkiga ka register-gareyn Turkiga joogta ma apply gareyn karayaan halkan kale waxaa ku taala ardaygu inuu yahay arday ka baxay secretary ama macad ama wax u dhigma inuunan dhalalin halkan waa muhiim 95 ka hor haddii aad dhalatay degree ma apply gareynaysid okay waxa ku xigta ardayga raba inuu caafimaad barto ama apply gareeyo waa inuu darajada haysta 90% hadduusan haysan ma helayo halkan lagu cadeeyay ardayga maadooyinka kalena 70% aad haysta inaad caafimaadkaagu wanaagsan yahay ardayga asaguna degree-ga apply gareynaya labadaas way iska mid yihiin inuu arday ugu yaraan qalin jabiyay bishii July 2015 arday sanadka hore qalin jabiyay
inuu qalin jabiyo laakiin haddeer ardayda aan weli qalin jabin ma apply garan karayaan wixii ka horreeyay waa apply garan karayaan okay halkan waxaa ku caadiyadana inuu qofku dhashay 86 wixii ka dambeeyay hadduu 85 dhashay ma apply garan karay ardayga doctorka ana 81 okay inuu 75 haysto isku celceliskiisa waxyaalaha laga baahan yahay maxaa kamid ah required documentiga muhiimka waxa weeyaan inaad haysatid online application aad buuxisid inaad soo qaadatid copy soo diyaarsatid waxyaalaha laga baahan yahay inaad diyaarsatid intaanan u gudbin xareyntaada copy of secondary school diploma inta badan waxay u isticmaalaan shahaadadii secretary-ga ama documenti cadaynaya inaad secretary-ga dhamaysay ama arday secretary dhamaynaya tahay halkan waxa weeyaan transcriptigaagii iskoolkaagii dhibciyaad keentay kuwaas oo cadaynaya waxa aad dhibcihii aad keentay halkan waxa weeyaan copy of invalid ID copy ID invalid oo shaqeynaya ama passport national ID ama birth certificate marka halkan aad waxaan idin kula sii talinaya dhammaan ardayda codsanaysa inay isticmaalaan passport waayo kuwan aad qiimaysaas uma siile iyo sawir photo okay intan markaan ku gudbo procedure to postgraduate level ardayda postgraduate-ka sorry halkan waxay ahayd ardayda undergraduate-ka kuwana waa ardayda postgraduate-ka ama masterka isku sibay marayaan halkanna waxyaalaha procedure-ka aad maraysid waxa weeyaan inaad furtid link website-kan oo kadibna aad ka samaysatid user iyo password kadibna aad gashid system-ka halkaasna aad ku soo gelisid documentiyada lagaga baahan yahay finally-na aad dhamaysid intan waxaan u bedelnaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo inagu oo ka shaqeynayna okay marka inta aragno halkan waxaa ku taala apply now insha Allah waan bilaabaynaa apply now marka kusoo baxdo anigu uu ii samaysan yahay email iyo username laakiin haddii adiga kuu samaysnayn waxaad tegaysaa register marka ku taalo ku dhufatid halkan waxaad arkaysaa attention waa inaad iska akhridaa waxaan oo dhan inta aadan bilaabin waan fahmay waxa weeye tusaale ahaan inaan passwordka aanan ilaaweynin iyo inaadan ilaawin in passwordku inuu bahalkan lacag la'aan yahay 2 daqiiqo qaadanayo inta oo dhan markaa akhridaa understand aad raadid halkan waxaad gelinaysaa magacaaga dhexe iyo magacaaga saddexaad gender waxaad tahay waad dooranaysaa taariikhda aad dhalatay waad dooranaysaa okay nationality waxaad tahay nationality-ga dalka aad u dhalatay baad dooranaysaa tusaale ahaan Soomaaliya kan halkan waad ka helaysaa haddii kale halkan Soomaali isagu qoraysaa oo ku soo baxaysaa tusaale ahaan Soomaali waad ku soo baxaysaa okay email-ka aad ku isticmaalaysid mar labaad baad ku celinaysaa password baad ku celinaysaa haddana password mar labaad baad ku celinaysaa password-kan markasta waraaq dheer ku soo baxda halka ku soo baxda waa inaad akhrida oo ah dirto email shaqeynaya geli password-kana haddii tusaale ahaan password-ku wuxuu yiraahdo please define password for accessing application system your password should contain at least 8 characters inuu dad xaraf ka kooban yahay ama 8 number ka kooban yahay wax xaraf ku jira hal xaraf tusaale ahaan ba oo ku jirta mar labaad ku celinaysaa koodka maad qoraysaa approve baad dhahaysaa hadduu halkan ka diido tusaale ahaan email-ka kale fadlan email sax ah ku dhahayaa geli waa lagu celiyaa refresh baa lagu dhahaa sanadkan cilada yar yar oo joog waa kula kulmaya intaad ku dhex jirtid xareynta bahalka marka fadlan u dulqaado kuna celceli email sax ah geli okay anigu uu ii samaysan yahay marka dib baan ugu noqonayaa email-kan waxaa lagu soo dirayaa activation code ka marka lagu soo diro baad arki doontaa application tusaale ahaan application activation code-ka laga soo diray aan fiiriyo hadeerto okay activation markaan sameeyay activation code-ka laga soo diray laba activation baa lagu soo dirayaa kala dambeeya Turkiya Bursalari iyo Turkiya Baghdad atisfayano onay atisfayano bilgisi marka fadlan kan hore halkan waad ku dhufan kartaa halkaas Turkiga ku qoran sanadkan af English kuma soo qor halkan waad ku dhufan kartaa kadibna wuxuu ku geynayaa hadeerto meeshii lagu galiyay application-ka hadeerana ayna sayfa wajiga hore igee markan tusaalahan uu igeeyay halkan waan ka geli karaa halkan waan ka geli karaa okay
tusaale ahaan mid kalena uu kusoo dirayaan tanna uu kusoo dirayaan halkanna waad ka geli kartaa meeshan ay ku taalo tick lines meesha laga gelayo waa halkan okay tusaale ahaan halkan uu ku dhuftayba halkan ku dhuftayna mid kale saddexaad baa isoo baxaya marka wax midka marka activationka lagu soo diro fadlan activation sug marka emailka activation lagu soo diro markiiba wuu soo baxaya 48 saacadood activationka aadan isticmaalina uu dhacaya okay anigu kii lay soo diray waan active garaystay emailkayga waan ku gelayaa fadlan emailka markaa sameynaysid email aad taqaanid samayso oo passwordka iyo wax kasta adigu aad gelinaysid marka hadeer tusaale ahaan emailkayga waan gelayaa passwordkayga waan ku qoranayaa Allahu musta'an okay enter ma dhahaya okay markuu saa igu soo baxday okay halkan bay hawsha bilaabanaysaa anigu hadeer waan sii buuxbuuxiyay horaan u buuxbuuxiyay laakiin qaabka loo buuxbuuxinayo mid baan dul istaagaya marka hadeer saa igu soo baxday meesha aan ku soo marka aan buuxbuuxinayay hadeerto formkii registrationka aan is registrationayay da'deeda waan ku qoray da'deedu waxay ahayd tusaale ahaan anigu master baan rabaa inaan hadeer tusaale ahaan xareeyo oon tusaale ku bixiyo marka 86 koran ku qoray haddaan 95 ku qori lahaa halkan baa waxay noqon lahayd active ama halkan baan aadi kari lahaa hadeer kuwan suitable ima aha waxaan on dib kaga sheekayn doono masterkan ayaa suitable ah PhD gan suitable ima aha haddaan hadeer xaggan aado kan baa suitable marka xaggan waan usoo noqon doonaa haddii la yiraahdo faceka uu leeyahay sanadkan applicationka la xareynayo waa faceka noocan ah marka faceka noocan ah fadlan haddii aad computerka taqaanid oo ku fudud yahay haddii kalena qof computer yaqaana ha ku caawiyo waa design cusub oo runtii fudud halkan waad akhriyi kartaa iyagoo ku caawinaya waxaan adigoo markasta caawinaya halkan waxa ku taala Turkey baa ku taala message Braclim in aad message u diri kartid qolyaha systemka fadhiya marmarka qaarkoodna waxay halkan iyagoo online ah baad kala sheekaysan karaysaa dad cilad kulantid halkan waxa muhiim ah inaad luqadda aad gelinaysid aad ka dhigatid tusaale ahaan English Arabic Turkey marka English ba inoo ka dhiganaa insha Allah marka intan gudbi maayo midna hadeerto ka sheekayn maayo markaan dib baan intan kaga sheekayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaan ka bilaabayaa halkan personal information sida ay kala horeeyaan 1 2 3 4 5 6 ilaa marka ugu dambeeyay applicationka aynu gelayno personal informationka warka bilaabay personal information baan tagayaa okay anigu wuu ii buuxbuuxan laakiin qaabka loo buuxbuuxinayo wax weyn maaha halkan waxa ku taarta edit kaas baad ku dhufanaysaa marka aad soo gashid halkan anigu wuu ii buuxbuuxaa laakiin adiga kuma buuxbuuxo marka aad soo gashid waxaad ku dhufanaysaa edit oo ah dib u qor ama edit gare Soomaaliga weeyaan Soomaaliga waxay ku noqonaysaa edit gare say noqonaysaa dib u qor bay noqonaysaa okay halkan waxaad ku aragtaa magacaaga geli buu ku dhahayaa magaca midhan mailankaaga geli Maxamed Cabdi oo kale aan geliyay halkan okay capitalka bayga furan Cabdi Suleyman genderku muxuu yahay waa wiil baan ka dhigay single halkaas baad ka dooranaysaa taariikhda aan dhashay waa maxay 1997 okay halkan okay master halkan waan ka bedeli karayaa waxaan ka dhigan karayaa 93 maadaama anagu marka halkan marka ay ku soo baxdo taariikhda markaad bid ku dhufatid tusaale ahaan dib aan noqdo waxaan iri 92 markaan dhashay bilahan ku soo baxay bishii bay halkan ku cadeynaya marka wali hadeer ilaa hadeer inta ku dhex jiray bahalka ma arag iyagoo af Ingiriisi laakiin af Turki waa Ocak Shubat Mart Nisan Mayis Haziran waa af Turki laakiin waa 2 weeyaan bisha aad dhalatay baad ku qoraysaa Eylul koylaatankeedi okay dhalashada waa maxay waa Soomaali dalkee ku dhalatay Soomaaliya magaalada ku dhalatay Laascaanood halkana waxaan dhahayaa maxaad haysataa waxaad rabtay inaad xariisato tusaalahan passport baan haystaa lambar labadan Soomaalida oo soo geliya hadeer la qaran la passport marka passport baan iri halkan waxa ku qoraysaa intaas u tirtid numberka passportka okay halkan maxaa ku taala
identification cardka baa soo qaadaysaa hadda aniga igu jira laakiin hadda rabtay inaad soo qaadid halkan baad ku dhufanaysaa kadibna toos buu u soo qaadmanaya hadda igu jira markuu igu jiro soos uu soo baxaya tusaale ahaan baan u geliyay halkan waxaan waxba u bixina okay halkan iyadana waa muhiim inaad sawirkii soo gashatid sawirkii laga rabay ee sawirka passport size halkan markuu dhufatid halkan baad ku dhufanaysaa kadibna waxaad dooranaysaa passport sawirka meeshu yaallo kadibna allah musta'aan saas buu soo gelinaysaa waad sidaas garanaysaa saas u soo garanaysaa kadibna okay baad dhahaysaa anigu igu jiray cancel baan iska dhahayaa okay inta markaan dhameeyo haddii aad dhalasho kala haysatid halkan baad ku soo dhufsan kartaa oo tusaale ahaan dal kale dhalashadiisa baa haysata halkan baad ku soo dhufanaysaa kadibna dhalashadii iyo wixii dhan buu halkan ka sii buuxinaysaa art baad dhahaysaa dalkee u dhalatay dalkaasaan u dhashay art sii dheh tusaale ahaan dal kale haddii aad soo dhalatayna wakan haddii kalena tick baad iska qaadaysaa okay halkan ha ka boodin halkan waxaa ku sii taala information kale oo isaguna muhiima diintee haysataa waxaan geliyay diin sunniyaan haystaa islaam sunni baan haystaa baan ahay halkan baad ku qori kartaa sunni haddaad ku qortid way soo baxaysaa sunni kadibna waad dooranaysaa okay ethnicitaada waa maxay ama jinsiyadaada waxay waa Soomaali disable miyaad wax ka tahay oo tusaale ahaan physical disable baa tahay hoos baad u wadi kartaa midna ma ihi select iska dhaaf okay waxaad ku dhufanaysaa save aan ku dhuftay okay taas uu save gareeyay una update gareeyay waxa ku xigta family information baan tagayaa family information waa maxay edit baan markaas tagaynaa hadeer waxba ma edit gareyn karayo markaan saa family information tago ilaa aad tagtid edit ku dhufatid okay markaastana indhaha ku hay markaan daaqad furoba halkan waxa ka soo baxaysa caawinaysa daaqadan waxay tahay tan magacayga ma bedeli karo waa maxay farqiga u dhaxeeya occupationka shaqada iyo positionka kala u dhaxeeya halkan waxaan gelay hooyada magaceedii hooyada ma nooshahay hooyada ma shaqaysaa haddii aad rabtid hooyada inay ma shaqaysaaba ku taala halkan hadday tahay fadlan tick saar kadibna maxay qabataa institution ka shaqaysa maxay tahay your mother's occupation maxay qabataa waxay baad qoraysaa tusaale ahaan macallimada oo kale weeyaan title-keeda halka soo qoraysaa okay laakiin aniga tusaale ahaan waxaa yidhi ma shaqayso aabaha magacii cabdisulaymaan okay ma noolyahay ma shaqeeyo baan ku dhaafay okay haye walaalaha maxaa kula dhashay afshan caruur ay la dhalatay okay mariel maxaa tahay mariel status reer meelada mas'uuliyad single baa ugu qoran total income maxaa lacagta soo gasha konton ilaa $500 baa soo gala okay waxaan oo dhan meelahan u buuxinayno hadii waxa weeyaan meelaha ugu muhiimsan ee hadhowto su'aalaha laga weydiin doono hadii markaad ku soo baxdid interview okay waan save gareeyay insa socono halkan waxaan marayaa markasta oo aad save gareysid mid aad dhamaysid laba calaamadood u saaraya tick anigu waan dhameeyay labada hore waan dhameeyay waxa dhan waan dhameeyay laakiin labadaas aan hadeer dhameeyay okay contact information family information personal information baa dhameeyay contact information baan tagay adeerto okay contact information waa maxay meelaha lagala soo xiriirayo waa maxay edit markasta aan ku dhufto okay magaaladii dalkee baad joogtaa Soomaaliya magaaladeed ascaanood postal code baan ku qorayaa 449 magaalada aad joogtid xamar Hargeysa Boosaaso Gaalkacyo meesha joogtid waad ku qoraysaa okay telefoonka xaafadaada gelinaysaa telefoonka waxaad gelinaysaa gacantaada 449 baa hadar geliyay 2439 baan geliyay okay the street-ka aad degan tahay magaalada waxaan deganahay Masalla Street oo numberkiisu yahay 2 Lascaanood Soomaaliya halkan Soomaaliya maadaama aynan hadeerto streetyada lahayn aan xaafaduhu kalena magac aynan lahayn magac haday dawladda Soomaaliya aad magac u garanaysid geli hadii kalena tusaale ahaan xaafada degan tahay magaceeda street-keeda iska geli okay my contact information is different my residential information waxa kala duwan meesha aan ku dhashay iyo meesha aan deganahay kala duwan halkan hadaad tick saartid waxa ku soo baxaysid meesha aad joogtay iyo meesha aad ku dhalatay wax ku soo baxaysa iyadana waad buuxinaysaa laakiin hadeertu ma kala duwan waa soo kamid halkan imsad ku noolay how long have you been resident in this address aan iri 16 sano year baan ku noolaa okay taasna waan geliyay halkan social media hadii Facebook aad gelin kartaa
twitterkaaga way gelin kartaa, linkerkaaga way gelin kartaa, ay google pluskaaga way gelin kartaa, skypekaaga way gelin kartaa iyo other kale waxyaalo kale oo okay. markaasna waxaan dhahayaa save. okay, halkan waxaa ku xigta education informationka baan yadana tagayaa. okay, horey baan u buuxiyay anigu marka maadaama aan master ahay oo master codsanayo waa inaad waxaa laga rabaa shahaadadaada secretary-ga iyo maxay iyo tii jaamacadda. marka high schoolka waad ku dhufanaysaa halkan associate degree fadlan ha isticmaalin, waxaa isticmaalaysaa bachelor degree isticmaal. high schoolkan ku dhufanay labadana ay soo baxay inaan dhameeyey Elais high school iyo Camud aan dhameeyey tusaale ahaan weeyaan. okay, tusaale ahaan sidee baad u gelinaysaa halkan high schoolkan ku dhufanaya, halkan bachelorkan ku dhufanaya waa markaan bilaabaya, laakiin anigu haddeerto waan horaan u geliyey tusaale ahaan Elais high school baan geliyey. hadda wax ka khaldamaan tusaale ahaan haddeer waxaan rabaa inaan dib u edit gareeyo. haddeer halkan ku dhufanaya waxay ku soo baxaysa edit, waxaan edit gareyn karayaa schoolkaygii. okay, wuu soo baxayaa fadlan indhaha lagu hadlayo refreshin buu sameynayaa. schoolka xaguu ku yaalaa Soomaaliya, magaalada ku yaalaa Las Anod, magaciisa waa maxay Elais high school. schoolku stagekiisu waa maxay waa secondary school. high school iyo taybkiisu waa maxay waa general high school, religious iyo vocational. marba ka dhamaysay baad ku haduu tusaale ahaan ardayda macaahadada diinta dhamaysay waxaad ku dhufanaysaa inuu yahay religious high school. haduu vocational high school yahayna asaas ku dhufanaysaa kan. marka kani waa general high school. waa maxay waxaad baranaysay muxuu ahaa natural science bay u badan yihiin iskoolada Soomaaliya, literature iyo language ku haday aad iskoolada ka baxdayna halkaas aad buuxinaysaa. okay, halkani waa muhiim grade type-kaaga iskoolka boqolkiiba maxaa lagu qiimeeyaa ma eeba lagu qiimeeyaa mise boqol ley baa lagu qiimeeyaa. iskoolada Soomaaliya badankooda wax lagu qiimeeyaa boqol ley. marka hoosna waad jiidi kartaa boqol waan tagi karaya, halkana waan ku qori karaya. maxaad keentay adigu shahaadada waa maxay 89 baan keenay tusaale ahaan baan keenay. maxaa decimal may ku jiraan? haddii decimal ku jiraan halkan baad ka dooranaysaa decimalkii 76 ah. halkan waxaa kusoo baxaysa 98.98. okay, iskoolkaaga halkan diblomadii horey waan usoo sheegay. dibloma waxay uga jeedaan shahaadadii baa soo qaadaysaa. horey baan anigu usoo qaaday, halkan way kasoo baxaysaa loo nabad kasoo baxday. laakiin halkan waxaa kasoo baxaysa transcriptiga. halkan su'aalahan ardayda way isweydiiyaan. transcriptiga shahaadooyinka Soomaaliya waxay ku wada qoran yihiin hal waraaq. marka fadlan 2 jeer soo qaad. okay, halkan waa muhiim waxyaalahan la isku qiimeynayo bay kala simid tahay. please indicate any achievement you obtained during your high school exam. the best tusaale ahaan haddaad gaadhay wax darajo ah tusaale ahaan ardaygii sanadkii ugu wanaagsanaa baad ahayd shahaada lagu siiyey, halkan baad soo gelinaysaa tan tigsaar. halkan maxaad ahayd achievementkaad gaadhay muxuu ahaa ma countrygaad ka gaadhay ma magaaladaad ka gaadhay regionkaad ka gaadhay ma magaalada maxaad ka gaadhay dalkaad ka gaadhay statekagaad ka gaadhay. halkan bay ku caddahay citydan ka gaadhay ama iskoolkan ka gaadhay. achievementkaad gaadhay muxuu yahay number 1 buu noqday. do you have certificate mad haysaa? haddaad haysid halkan fadlan soo geli. marka anigu ma gelin fadlan waan iska dhaafay. halkan haddaan rabo inaan soo geliyo halkan baan tig saarayaa, iyada un baan soo gashanayaa shahaado tusaale ahaan tanaan soo gashanayaa. okay, waan soo geliyay save baan dhaxayaa. markastana ha ilaawin inaad akhrisatid kuwan haddii aad su'aalo kugu yimaadaan inaad mid kasta furtid oo aad akhrisatid. tusaale ahaan kan oo kale wuu tagay. okay, jaamacaddii baa timi. jaamacaddana sidoo kale anigu horaan u geliyay. marka iyadii un baan edit garaysanaya. haddii aadan gelin halkan baad ku dhufanaysaa isku meel un bayna geynayaan. edit baan dhahayaa. okay, wuu imanayaa. marka ay timaado halkanna sidii shahaadadii secretary-ga wax weyn kuma kala duwana. halkanna markasta wax kusoo baxaysa caawinaysa what kind of education what kind of educational information should I provide. halkan haddaan ku dhufto caawimaad baa halkan ku siinaysa. okay, markastana dib ugu noqo. okay, jaamacadda xagee ka dhameeyey Soomaaliya? jaamacadda waxaan ka dhameeyey Boorama. Camud waxaan ka dhameeyey faculty-gaan dhameeyey waxaa business administration. qaybtan dhameeyey waxay saad business administration waan graduate gareeyey. tusaale ahaan haddii
aadan ku arag departmentigaaga halkan waad gelin karaysaa intaad edit ku dhufatid fadlan waxaad qortaa facultyga aad doonaysid tusaale ahaan social baan doonayaa halkan baad ku qoraysaa waxba yaanan halkan oo kale aad ku dhufanaysaa kadibna business administration but okay safe dhahaysa way gelaysaa halka business administration baan doortay halkan aan ka doortay halkan bay inta badan liisaskooda baxaan jaamacadaha Soomaaliyana halkan bay ku jiraan dhamaantood okay jaamacadda gormad bilowday halkan baad dhahaysaa okay halkan baad ka dooranaysaa gormad dhamays halkan ka dooranaysaa scoorka jaamacaddu maxaa lagu qiimeeyaa gradekeeda 4 baa lagu qiimeeyaa bay tan ahayd haddii 100 lagu qiimeeyana inta badan jaamacadaha dee waxaan u malaynayaa in lagu qiimeeyo grade 4 baa lagu qiimeeyaa waxaan keenay anigu tiriib maxay darajo saraan iska qaadanayaa maadaama 3.3 baan keenay bachelorkaagii baan soo qaadanayaa okay bachelorkii waa shahaadadii baan soo qaadanayaa way igu jirtaa aniga tusaale ahaan tan baa igu jirta waxba igu jira tusaale ahaan sawir baa igu jira marka waan ka gudbayaa transcriptigii baad isagana soo gelinaysaa if you have studied in different fields as minor area please enter them halkan tusaale ahaan waxyaala minor oo baad jaamacadda ka baratay fieldigii baad gelinaysaa haddii aad haysatid halkan iyadana waa sidii secretary kale haddii aad jaamacadda darajo ka gashay waad ku cadaynaysaa halkan waad sidii secretary-ga baad halkan u soo gudbinaysaa okay safe baan dhahayaa tanna okay markaan safe dhaho internetka okay safe baan idhi waxaan usoo gudbayaa language markaan usoo gudbo language waa halkan markasta waraaqda koowaad ee kusoo baxda iska akhri fadlan degdegana iska ilaali si habi ah waraaqda scholarship ku axree language kan waa the language of education for most programs offered in Turkey University is Turkey halka waxay ku sheegeen jaamacadaha Turkiga English waxa lagu wada dhigaa Turkey laakiin qaar waxa lagu dhigaa English iyo Faransiis iyo Carabi candidates who wanted to pursue their studies language other than Turkish are required to provide an intermediate recognized certificate to provide their language. ardayda aan rabta inay luqadan Turkiga wax ku bartaan waxa laga rabaa inay soo qaataan shahaadooyin facultygaas u gaar ah sida TOEFL iyo kuwaas oo kale ardayda speaking ardayda kale Englishka aan rabin waxa iyaga laga rabaa C1 oo ah luqadda Turkiga okay marka luqadaada waa maxay native language aan bilaabaya halkan markaan ka soo gudbay native language waa maxay halkan baan ku dhufanayaa markasta edit don't forget edit inaad ku dhufataan okay halkan baad ku dhufanaysaa maxaa ku soo baxaya luqadaada dalkaaga waa maxay Soomaalice baa ku taala marka fadlan haddaad Soomaalice aragtid waa Soomaali af Turki weeyaan laakiin waxba ma bedelin af Turki bay ku soo geliyeen marka Soomaalice aan dhahaynay safe aan dhahayaa okay other language skills English maxaad luqad kala taqaanaa waan ku sii English baan ku daray waxaan ka haddeer ka ahay advanced baan ku ahay tusaale ahaan haddaan rabayna edit garaynaya haddii kale luqad kale ku sii daraya English kan ama maxay English kuma taalo fadlan halkaas iska hubiya ama isha ku haya kuma taale English af Turki bay ku taale English baa ku taale English okay English af Turki weeyaan maxaa tahay luqadda ka tahay advanced baan ka ahay haddaan shahaado ka haystana halkan baan tig saarayaa shahaadadii baan soo gelinayaa waa maxay eegalka waxaa ku taala luftan sechisinis waa maxay halkan tusaale ahaan imtixaankan gashay muxuu yahay imtixaankaad haysatid waa TOEFL okay sanadkee baad qaadatay 2000 bishaas bilihii baan bil doortay bishaasaan qaatay okay gradekii baad halkan dooranaysaa maxaad keentay dhibcahan baa waa imtixaankaas baa loo yaqaanaa dhibcahan uu leeyahay okay ismail hadduu ku jiro halkan aad soo gelinaysaa halkanna waxaad soo gelinaysaa shahaadadii baad soo gelinaysaa okay anigu laakiin ma haysto taasaan iskaga gudbay safe aan idhi okay haddii aad luqad kale taqaanin saas umaad ugu sii daraysaa halkan waxaa ku taala luqadda Turkiga ma taqaanaa halkan anigu no baan hore u geliyay edit dheh yadana no halka okay inta markaan ku gudbo waxaan isu gudbinayaa work experience xirfadeedii shaqo okay
okay ولي مدوا فضلا هلا طلقات okay you are expected to provide markasta inta akhirki baan kula talinayaa you expected to provide information on your current and previous work experience if you haddaad shaqooyin hore soo samaysay you can more than one job experience by clicking add button sidan unbaad u gelinaysaa iyadana okay halkanaan soo geliyey waxaan idhi waxaan kasoo shaqeeyay Nugal University waxaan ahaa macallin waan ka tegey okay okay iyada un baan edit garanayaa waa wax fudud wax weyn maaha iyada un baan edit garanayaa okay sidee baan u edit garanayaa jaamacadde xagaad kumbariga u soo shaqeynaysay maxaad ahayd positionkee ahayd teacher baan ahaa positionka macallin baan ahaa waan ka tegey taariikhdan soo shaqada galay iyo taariikhdan ka baxay halkan waxaa ku taala please give details about your responsibility waxyaalaha aad qaban jirtay tusaale ahaan allow nabad baan anigu Soomaaliya allow nabad baan geliyay laakiin Soomaaliya allow nabad falan gelin maysid waa tusaale waxaan adigu responsibility-gaagi geli safe dheh okay safe markaan idhi halkan waxaa kaloo ku sii taala internship miyaad soo samaysay ha internship waan soo sameeyey waxaan kasoo sameeyey shirkadda Telesom waxay ahayd internship noociisu muxuu ahaa budgeting buu 14 bilood baan kasoo shaqeynayay haddaan rabo inaan edit gareeyo tanaan edit dhahay haddii kalena waxaan ku dhufanayaa add oo iyadana saasaan si ku dhahaya okay academic qualification baan u gudbay hadda okay academic qualification maxay tahay academic qualification-ku iyaduna waxa weeyaan an akhrina some university and programs require result of international delivery exams jaamacadaha qaar waxay u baahan yihiin imtixaano caalami sida imtixaanka loo yaqaano GRE, JAMAT, SAT, ALES and conditions of registration when you select a university programs candidates should check their academic qualification requirement and special terms these candidates who have such document are required to fill okay halkani waxa weeyaan waa muhiim hadii jaamacadaha qaar waxay kaga baahan imtixaanada noocaas ah uguna xiri doono marka registrationka marka hadii aad fadlan aad shahaadooyinka aad soo qaadatay halkan geli wax ku taala waxaan geliyay alias baan qaatay dalka Soomaaliya ka qaatay iska gareer kaasan keenay haddaan rabo inaan edit gareeyo inta soo u geliyay edit baan dhahay hadii kalena mid kale aan ku daraya tusaale ahaan mid kale aan ku daraya halkan un baa laga daraya add baan idhi imtixaanka aan qaatay muxuu yahay magaciisa waxa weeyaan kaasaan quantitative reason baan qaatay dalkan ka qaatay dalkee waa ahaa Soomaaliya okay imtixaanka waqtigan galay 2014 bishii 11aad 13keedii gareerkan keenana muxuu ahaa 69 shahaadadina waan soo gelinayaa halkan baa shahaadadina ka soo gelinayaa okay safe aan dhaxaya sidaas very simple haddii decimals ku jirana halkan baad gelinaysaa okay halkan waxaan u gudbayaa ilaa haddeerto waxaan ku jiraa wali macsan turkigii iyo facultiyada dadka qaar waxay ka fikirayaan facultiyadii xaggaba ku jiraan laakiin insha Allah way soo socdaan degdegin social activity baan u gudbayaa social activity taas oo samaysa okay you are expected markasta waxaan akhriyeynaa xaggan you are expected to give information about your voluntary haddii aad soo sameeyay shaqooyin mutadaawacnimo iyo haddii aad ku guuleysatay shahaadooyin iyo awaardis xaggan hoose baad gelinaysaa to be considered while necessary assessing halkan waxa weeyaan marka waxaan la qiimeynayo application-ka la qiimeynayo waxay ku siinaysaa dhibcay ku siinaysaa okay halkan waxaan geliyay awaardis baan geliyay waxaan ku guuleystay award baan ku guuleystay halkan baan ka edit garanayaa sidii hore halkan waxaan soo sameeyay shaqo volunteer aan soo sameeyay shaqadan volunteer waxaan ka soo sameeyay Nugal University okay tusaale ahaan haddaan kuwan edit garanayo ama mid kale ku daraya tusaale ahaan maxaan ku guuleystay award baan ku guuleystay project certificate award baan ku guuleystay ama certificate award baan ku guuleystay awardkaan ku guuleystay muxuu ahaa okay awardkaan ku guuleystay baa soo baxaya okay namekiisu muxuu ahaa okay nameka awardka muxuu ahaa the best
best teacher datekaan qaatay bishii shanaad. Okay, institutekan ka qaatay Nugaal University baan ka qaatay. muxuu ahaa nooceebu ahaa award buu ahaa. shahaadadii lagu siiyey baad halkan kasoo gelinaysaa iyadana. Okay, halkan explanation baad kasii bixinaysaa. explanationka shahaadadii lagu siiyey Soomaaliya allow nabad baan ku qorayaa, laakiin Soomaaliya allow nabad fadlan adigu ha ku qorin hadhowto. waa isdhahaya qaabka uu sameeyey adna uu sameey. laakiin okay, halkan volunteer xasuus ma shaqooyin tusaale mutadawacnimo waxay soo sameeyay macallin baahan Nugaal University macallin mutadawac ka ahaa. okay, mid kale aan ku darayaa. okay, mid kale baan ku darayaa oo ah shaqooyin mutadawacnimo. shaqada mutadawacnimada organizationka ka soo sameeyay muxuu ahaa la dhahaa social relief organization. okay, waa social relief organization. okay, ama halkan shaqada magaceedii baad ka soo sameynaysaa. shaqada magaceedii waxay iska ahayd awareness bay ahayd. awareness organizationka baa halkan ku qoraysaa. waan isdaba mariyey social relief organization. social relief organization iska sax haddii Englishka wax ka khaldamay. explanation baad ka bixinaysaa waxay ahayd taasna. marka anigu explanation hadda ka bixin maaye. Soomaaliya allow Soomaaliya nabad iska qorayaan safe baan dhahayaa. markastana waa inaad halkan fiirisaa inta word ee lagu ogol yahay. okay, halkan information ku saabsan waxa aad jeceshahay. okay, anigu waxaan jecelahay inaan mar uun arko Soomaaliya oo nabada, laakiin Soomaaliya oo nabada waxaan waa hobby weeyaan. marka hobbygaagana qeexba edit baan dhahayaa. marka qaabkee halkan tixar waxyaalaha jeceshahay. cinemadan jecelahay, musican jecelahay, technologygan jecelahay, computerkan jecelahay, internetkan jecelahay, waxaan jecelahay sportigan jecelahay. halkana waxa aad jeceshahay fadlan ku qor iyadoo af English af Soomaali ma jiro. anigu af Soomaali baan ku qoray waa tusaale ahaan. fadlan ha ku qorin Soomaali ee ku qor English safe baan dhahayaa. okay, waa dhamaatay badankeedii. okay, haddeer application baan gudbayaa. okay, halkan waxaad ku aragtaa you have no active application, please select an appropriate programs for the home page to apply. halkani waa meesha ugu horeysay markaan marayay aan lahaa halka idin sheegi maayo. halka ugu dambaysan sheegay waa maxay ilaa markaan wax soo waday dadka waxa ka guuxayay faculty-yadan doonayay iyo waxaas xagal laga arkay. halkan laga arkaya. marka halkan waxa ku taala what should I do before I start the application. inter application birin maxaan sameeyaa. halkan faculty-ga doonaysid iyo waxa iyo nooc yahay waad ka eegi kartaa. kuwa ku banaan maadaama aad master tahay oo aad master tahay kuwa ku banaan waad arki doontaa. kuwa yar badnaan master maadaama aan ahay business administration aan soo geliyay education background-kaygii waxa ay banaan wax uun ah business administration. haddii aan meeshii soo geliyo jaamacadda meeshaan soo gelinayo business administration haddaan computer soo gelin lahaa jaamacadaha computerka ay soo baxaya. haddaan soo gelin lahaa secretary haddaan ahay arday secretary fadlan ardayga secretary-ga meesha education background-ka uu soo gelinayo fadlan jaamacadaha dooran education-kaaga waxaa soo gelinaysaa secretary keliya. marka secretary haddaan markaa soo gelinaysa caafimaad oo kale soo doortay jaamacadaha caafimaadka ay soo baxaya. tusaale ahaan jaamacadaha caafimaadka halkan baan ka fiirin karayaa faculty-yada aniga hadeerta iyo banaan. halkan oo kale aan search ku dhufanayaa waxaa soo baxaysa page-kan cusub ay soo baxaya. dalkee u dhalatay waxaan idhi Soomaaliya. okay, Soomaaliya marka ii soo baxdo maxaa tahay master baan. okay, maxaad baranaysay business administration baan baranayay. business administration kan ku qorayaa business ama business management iyo kale aan idhi jaamacadaha search ma ku dhufanaya. jaamacadaha bal bixinay business administration charity ma ku dhufanaya. okay, jaamacadahana bixinaya business administration. marka
halkan haddaan kusoo dhufto jaamacadaha bixinaya halkan bay ku yaalaan laakiin qaabka loo dooranaya qaabkan maaha dib baan ugu noqonaya halkan waxaan oo dhan jaamacadahan oo dhan baa bixinaya markan laakiin qaabkan waad fiirinaysaa waxa aad doonaysid tusaale ahaan halkan oo kale maxaan baranayaa caafimaad oo kale haddaan ka eego halkan laakiin meeshii active ka maahay laakiin waan ka eegi karaa medicine oo kale aan ka eegayaa medicine studies medicine ka jaamacadaha bixinaya medicine-ka halkan waad igina ka eegi kartaa laakiin aniga active maaha maadaama aan business administration kasoo doortay halkan waa meeshii laga fiirinayo jaamacadaha business bixinaya faculty-yada halkan laga fiiriyaa laakiin aniga ima banaana halkan baa waxay bixinaysaa technology waxay bixinaysaa medicine kuwan baa sii fiirinaysaa faculty-yada ay bixinayaan sii furfadlan halkan intaas u furtid faculty-yadan ay bixinayaan waan furayaa public health kuwan waad fiirin karaysaa iyagana waa sii fiirin kartaa okay waan iska xirayaa laakiin hadda aniga ima banaana waxaan ku noqonayaa halkan ay ku taala apply fadlan waxaan idhi education background-kaaga waxaad kusoo qortid baa waxaa kuu furnaanaya in ay kuu furnaadaan haddeerto aniga education background-ka business buu ahaa marka waxa active ii noqonaya waxay noqonayaan labadan program ama scholarship program labadan program waxaa laga dhexeli doonaa business-kaygii maadooyinka hoostaga okay ibnu hudun social science scholarship program 2016 bash vuru donami iyo labadana ku yaala marka mid baan doonanaya kan baan active ka dhiganayaa marka koowaad page-ka markaa soo gashid baad halkan ku arkaysaa laakiin ma apply garan kartid marka koowaad ilaa intaas oo dhan soo dhamaysa okay apply baan ku dhufanayaa okay intaadan fadlan bilaabin waxaan dhawaan iska akhridaa waxaan iska akhriyay start application halkan waa meesha ugu muhiimsan ee wax ka bilaabanayaan fadlan indhaha ku haya start application baan ku dhuftay wuu shaqaynayaa insha Allah in yar baynu ku haynaynaa indhaha una soo bixi doona haddii ilaahay yiraahdo waana meesha ka bilaabanayaan fadlan waxaan kula talinayaa sanadkan waxbay bedeleen marka u dulqaata haddii ay programmada iyo in ay ku soo bixi waayaan fadlan u dulqaado oo eeg wuxuu qaadanayaa application ama 30 daqiiqo ama 50 minute buu qaadanaya adigu soo ku base garaysan documentation u diyaarsan yihiin okay intan oo dhan markaan iska akhriyo general condition waxaan akhriyo waxyaalahan soo sheegnay okay documentada laga bahbahaniyeen waxaan waa iska eegaysaa laakiin intan oo dhan waan soo iskan garaystay waan akhriyay waxaan waxa ma qabo tig 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 baan saaraya okay kana tig tig baan saaraya okay safe aan dhaxaya isagana intaas la maraya programmiski waan aragnay apply condition-kina waan tig baan saarnay letter of intent halkani waa muhiim fadlan halkan waa muhiim waan ku celinaya waana meesha scholarship-ka la isku qiimeeyo fadlan halkan si taxadar leh u qor waana meesha su'aalaha hadhow interview-ga lagu weydiinayo okay waana qorisyadaasi waa su'aalaha hadhow interview-ga lagu weydiinayo waana su'aalaha lagu qiimeynayo qaabka aad u fikiraysid iyo qaabka aad wax doonaysid okay waxa ugu horeeya please define the subject you plan waxaad halkan ku qeexdaa waxa aad baranaysid inta aad turkiga joogtid programka aad baranaysid qeex fadlan ha ku soo koobin maadadaas aan baranaya laakiin qeex maadadan aad baranaysid iyo waxay tahay qeex okay please state your knowledge in this subject aqoontaad u leexday halkan ku qeex why is significant for you maxay significant kugu tahay iyo how you will contribute to it iyo sidee baad uga qayb qaadan kartaa tusaale ahaan hadda uga qayb qaadan kartaa marka aad dhamaysid okay please haddaan si u sharaxo fadlan si kale u sharaxo cidba si bay fahantahay fadlan si adigu ku dhufo fahan qeex markiiba ha ka jawaabin qaado kasoo shaqee application-kan uu ku save garaysan yahay dib baad usoo geli kartaa dibna waad kasii wada kartaa please provide information about permanent university and academic halkan haddii aad turkiga jaamacad khaas ka taqaanid aad xiiseynaysa halkan ku qor haddii kalena waa iska qor kartaa aad uma aqaan halkana please state your plans halkana waxaad ku qeexaysaa marka aad soo dhamaysid jaamacadaha turkiga ama jaamacadda waxaad baranaysid maxaad qaban doontaa halkana please indicate why you have chosen this particular department and your knowledge about this department maxaad dooratay
departmentigan iyo aqoonta aad u leedahay departmentigan marka intaas oo dhan buuxisid tusaale ahaan anigu af Soomaali baan ku buuxinayaa laakiin fadlan adigu waxaad ku buuxisaa English Soomaali wax la yiraahdo laguma buuxinayo anigu tusaalaan ka wadaa anigu halkan waxa laga rabaa halkan indhaha ku hay 250 kiina ka badan erayada aad ku soo qoraysid erayo fiican oo aad ka soo fikirtay si fiican aad uga soo fikirtay waqti gelisay fadlan gel waan gelgelinaya anigu waan gashanaya waayo tusaalaan anigu taa oo ma jeedo okay safe waan iska dhaxaya safe markaan dhahayo halkaas waan dhameeyay halkan waxa ku taartay reference information halkan reference information wax kale ma afturkiga halkan ku yaala hadan afturkiga soo koobo waxa weeyaan reference information waxa weeyaan qofku yaqaan adiga oo waraaq ku soo qoray waxa tahay tusaalahan diinkaagii gudoomiyahaagii jaamacadda academic-gaagii baa waraaq ku soo qoray inuu ku yaqaano inaad ahayd arday fiican diinkaagii baa ku soo qoray qofkaas la shaqeyn jirtay baa ku soo qoray marka intani waxa weeyaan waa muhiim runtii in aad gelisid okay waan gelinayaa waraaqdu tusaalahan waxa waraaqii soo qoray Abdalle magaciisa saddexan Abdalle magaciisa labaad baan gelinayaa Abdalle Sancad telefoonkiisa aan gelinayaa okay 449 halkan furaha haddaan ku ilaawo furahan halkan waad gelin karaysaa 00 emailkiisa baad gelinaysaa emailkiisa qofka waa qofka emailkaaga maaha emailka tusaalahan emailkaas aan geliyo anigu hadeerto company-ga uu ka shaqeeyo ama wuxuu ka shaqeeyo Nugal University muxuu yahay academic registrar waxa uu yahay qofka title-kiisa gelinaysa warqadda ku soo qoray baa soo gelinaysaa iyadoo ama PDF ama GPG ama waxa bay warqaddu uu qoray baan soo gelinayaa iyadoo PDF tan tusaale ahaan wuxuu qoray okay PDF kaas soo gashanaya this information belongs to my academic halkan fadlan tiksar information kani qofka aniga iga daminka ama iga daminka ayaan dhihine reference-ga ableero documenti-gaaga soo qaad buu yiri okay kana soo qaatay sawirkana soo qaatay okay safe aan dhahaya dokumentiyada fadlan yani ka badnaanin 5 megabyte uu geliyay okay halkan markasta halkan intaan cagaarka soo saaray waa intaan dhameeyay kan aan maraya kan waan dhameeyay preference kaas baan hadeer tagaya preference muxuu yahay okay bilbilban waxaan u dil istaagayaa fadlan marka preference-gan waa maxay waa preference-gan wax kala ma ah waa meesha muhiimsan faculty-yadii iyo wixii oo dhan halkan laga dooranaya halkan waxa ku taala waa inaad doorataa 12 jaamacadood iyo qaybahoodii kuwaas oo turka ku yaala jaamacado faculty-gaaga wada khuseeya for undergraduate candidate choose made for university located jaamacadaha university-ga ku yaala located Ankara iyo Istanbul iyo Izmir should be more than half the number of preferred totally kala badh bay noqon karayaan jaamacadaha megaha inta badan kala badh bay noqon karayaan tusaale ahaan 12 jaamacadood 6 waxaad ka dhigi kartaa inay magaalooyinka ku yaalaan fadlan waraaqdan in aad attention ku bixisid first rowgaaga choose you will be charged as the most preferred markasta waxa la qiimeeyaa jaamacadda koowaad aad dooratid 12 jaamacadood baan dooranaya 12 jaamacadood aan dooranaya halkan baan ka bilaabay fadlan 12 wax ka yar ha dooranay business baan anigu doonanayay business baan rabay business English business markaa business kana doortay faculty-ga halkan ee diyaarka faculty-yada halkan ay diyaar ka yihiin tusaale ahaan andii kala isku dhaho faculty-yadii oo dhan halkan ay diyaar ka yihiin tusaale business ku dhufta wixii business-ka la xiriiray waxan oo dhan waa business-ka un bay la soo xiriiraan iyo ganacsiga waxa la soo xiriiraan markaa business-ka baan anigu dooranaya business baan doortay 12 jaamacadood baan ka tirsanaya 12 jaamacadood jaamacaddan maxay ku baxaysaa af Ingiriisi waxyaalaha lagaga baahan yahay halkan waad ku soo dhufan karaysaa maxaa lagaga baahan yahay jaamacadda halkan waxa ku yaala TAT DC TOEFL waxba lagama baahna inaad haysatid degree aad qaadatay ugu dambeyn ama 2000 August aad qaadatay 2016 baa laga rabaa okay tan baan ku dhufanayaa okay safe baan dhahayaa
safe markaan ku dhufto waxay gelaysaa xaggan hoose bay gelaysaa insha allah indhaha ku haya way geli doontaa haddii ilaahay yidhaahdo okay halkan wuu shaqaynayaa haddii uu shaqeeyo fadlan waxaa laga yaabaa in uu galo aan fiiriya inuu gashay iyo in kale ma ay gelin way soo geli doontaa laakiin haddii ilaahay yidhaahdo wataa way gashay okay waad dili garayn kartaa jaamacaddana mar labaadna waan gelin 12 jaamacadood baan insha allah haddii ilaahay yidhaahdo gelinaya English baad jaamacaddana ku baxaysaa maxaa laga baahan yahay waxaase laga baahan yahay TOEFL-ka inaan keeno insha allah waxaa laga yaabaa in ay iyagu ku diraan okay sayfaantana dhahaya okay jaamacadaha 12 jaamacadood baan gelinayaa insha allah okay license Ankara Istanbul Izmir okay jaamacadda wuu iga diiday okay jaamacaddan oo kale aan dooranayaa maxaa laga baahan yahay iyadana waase laga baahan yahay jaamacadda hore wuu iga diiday jaamacadahana fadlan aad jaamacadaha dooranaysid niyadda ku hay ama fadlan fiiri oo website-dooda galgal oo fiiri waxay qabtaan maxaa lagaga baahan yahay website-dooda gal booqo 12 jaamacadood baan insha allah gelin doona haddii ilaahay yidhaahdo waan jarayaa ama waan yaraa aamusayaa intaan jaamacadaha gelgelinayo fadlan waxaan kaloo kusii talinayaa sanadkan 2016 systemki way bedeleen wax badan bay ka bedeleen fadlan u dulqaata fiiriya ku celceliya waa laga yaabaa in waxyaalo fara badan kaa diidiido ku celceli waxaa laga yaabaa marka dambe in uu yeelo wax fara badan bay ka bedeleen halkan jaamacadda magaceeda ku taala facultyga magaciisa ku taala ishlatme أنا بلم دالي وبزنس administration halkana jaamacadda magaceedii iyo magaalada ku taalo iyo luqadda ku baxayso bitmank jaamacadood baan saa kusoo gelinayaa okay jaamacadahan afturka baan iska wada dooranayaa 12 jaamacadood markaan soo geliyo okay markastana haddaad doontid cancel waad ku dhufan kartaa sida halkana waad kala socon karaysaa okay markasta wuu isbedelay 4 baan marayaa hadeerto business administration fiirin karaysaa halkan jaamac waxay ku baxaysaa Ankara halkan waad ku dhufanaysaa jaamacadda wax lagaga baahan yahay laakiin 12 jaamacadood baa laga rabaa oo wax facultyga fadlan facultyga kala duwan ha dooranin hal faculty oo وين دورتها business بنانو هدر دورانيا business administration يا business labada farqi weyn uma dhaxeeyaan laakiin business kaas baan wada dooranaya shan baan maraya business ka baan ku noqonaya maanta dhan hadii aan intaan business doorto haddana aan doorto accounting aan doorto haddana aan doorto management aan doorto waxaas waxay keenayaan in failkaagi ama applicationkaagi uu noqdo disqualified you can't select the same laba jaamacadood ma wada dooran kartid laba jaamacadood baan isku doortay inaan doorto marka maxay keenayaan in ay noqoto jaamacadaha hadhow marka faculty la fiirinayo failkaagii in khalad ka yimaado marka fadlan hal faculty oo dooro tusaale ahaan haddaan doorto management haddana aan doorto accounting haddana aan doorto faculty marka fadlan halkaas iyadana waa muhiim iska hubiya oo niyadda ku haya anigu business baan maanta ku noqonayaa business baan maanta ku noqonayaa okay Galatasaray University Istanbul systemku wuxuu culus yahay dad fara badan baa ku jira dee sanadkii hore waxaa soo apply gareeyay sidaan information ku hayay 9,000 oo qof baa soo apply gareeyay marka sanadkana waxaa soo apply gareynaya dee waxaa soo apply gareynaya 200,000 oo qof baa soo apply gareynaya marka waa jam weeyaan hadeer halkan message karalim markasta hadda oo kale intaanan videogan aan duubin ka hor waxaan sameeyay cilad baa iga leeyahay kulantay kadibna waxaan sameeyay
waxaan la kulmay ama aan halkan codsi kala doortay okay markaas khalad baan sameynaya aan codsi ka codsaday in ay bedelaan oo ay wax yara hagaajiyaan codsigii markiiba anigoo arkaya bay systemkii shutdown gareeya markaan videogan yar dhameeyo baan tusaalahaan intuu si wadaan tuso sawirkan oo kale adeerto waxay sameeyeen intii aan fadlan waxaan ku yiri ma dooran karayo ama jaamacadda kuma dari karayo facultyga menu kuma dari karayo systemkii bay damiyeen dib u daareen marka fadlan codsi markasta samee sideed baan marayaa facultyada aan ku dardarayay jaamacad ama faculty baan ku oolin waxa laga yaabaa facultygaaga inuu ku oolin aad doonaysid facultyga aan doonaysid aan dhihin facultyga jaamacadda dhamaysay inuu ku jirin meesha marka meesha ay ku taalo not list aan markii ku soo darayay baad fadlan dooranaysaa way damiyeen systemka way intay damiyeen bay dib u soo daareen fadlan markastaba halka waxa ku taala message Bracklin hadda way kaceen marka halka na waxay haray hadeerto Istanbul tan doortay talo fadlan waqti dheer inuu ku qaato waa laga yaabaa computerkaaga chargerka yoonan ka ag fogaanin ama chargerka kugu jiro internetkuna ha ku wanaagsanaado dulqaadna yeelo shaax u soo qaado biyo u soo qaado kafee u soo qaado in badan u soo jeed intii waqti badan waynaad gelisaa waxaan haddaad rabtid inaad ka mileegaysid waxaan kaloo aad ugula sii talinayaa dadka apply garaynaya Soomaalida apply garaynaysa in aad ilaahay isku xidhaan aydan baqin aydan qofna isku halayn waayo waxaan safaarad ma jirto wasiir ma jiro madaxtooye ma jirto waa qof yaa aqoontii iyo intii uu bartay qaadar wuxuu haystaa jaamacadaha marka tan oo business administration ka Englishka oo kala aan dooranaya talo Englishka ma doortay marka fadlan aqoontaadu meesha ay ku gaarsiiso weeyaan waxaan rajaynayaa in arday Soomaaliyeed oo fara badan sanadkan ku soo baxayso insha Allah videogana uu anfici doono arday fara badan darkooyton mid kaliya ayaa hadhay insha Allah business administration ma business iskana doorto tii ugu dambeysay inay tahay waan malaynayaa waxaan ka waday ardayda Soomaaliyeed sanadkan insha Allah arday fara badan ma soo baxaysa ardaydana videogana inuu anfacayaan u malaynayaa af Soomaali video fara badan oo ku jira English ba ku jiraan laakiin waxay la muuqatay in aan maadaama ay nahay arday Soomaaliyeed in aynu afkeena ku duubno ardayda Soomaaliyeedna dhammaan ay ka faa'iidaan okay hadda 12 jaamacadood ma dhameeyay okay safe markasta ilaawin buttonka waynu soo baranay okay safe ku dhufo uu safe gareeyay preference-kaaga waxa ku xigta survey-gani waxyaalaha ugu dambeeyay baynu maraynaa okay halkan waxaan jeclahay inaan gabagaba marayno survey-gani waxa weeyaan xagee ka soo heshay su'aalahan please specify how you learn application kama scholarship xagee ka maqashay marka waxaan dhahayaa waxaan ka maqlay social media aan ka maqlay okay haddii fadlan aad ku soo baxdid bay ku dhaheen interview-ga xagee jeceshahay laga qaado waxaan jeclahay in laga qaado Soomaaliya magaalada jeceshahay waxaan jeclahay Hargeysa Muqdisho Hargeysa ku jira marka marba tii ku dhow fadlan dooro halkan have you ever been Turkey miyaad before tagtay halkan maxaa kale dhaqalaaba Turkey miyaad joogtaa do you have relative qaraab miyaad ku joogtaa Turkiga do you have any relatives oo Turkiga ku nool ama halkan labadan way isku soo dhow yihiin halkan fadlan ha isku saarina ha tagsiinina ayo waxa laga yaabaa inay ku qiimeeyaan ardayda Soomaaliyeed in dhahan ardaygu tahriibiya waxaas marka waa kaftamay halkan fadlan tig ha saarina inta aan ka gudbo halkan waan dhamaynay ma sha Allah shaqo dheer kadib waan dhamaynay maxaa isoo baxaysa application summary waxyihi aan aawad soo sameeyay baalkan igu soo baxaysa fadlan
waxaan u dhan akhri xagga waxaan waxayna soo sameynayna magaca hooyaday personal information bank contact information wixii oo dhan kuwan way soo bixeen okay fadlan haddii ay wax kaa khaldameen dib ugu noqo meeshii aad maraysay dib ugu noqo wax iska soo iska soo sax intan oo dhan waa muhiim fadlan letter of intan tantiga waa maxay waraaqda ay ku taalo su'aalaha qorsiyada lagu qorayana oo kuwan ah fadlan si fiican iskaga qor halkan oo kale haddii aan intaanan u gudbo ardayda secretary oo kale iyaga su'aalaha la weydiinayo haddii aan tuyaro tuso ama aan eegno waxaa ka mid ahaa kuwan baa ka mid ahaa halkan su'aalihii halkan inay ku jiraan folderkan bay ku jiraan okay letter of intent ardayda secretary-ga iyagana su'aalahaas baa la weydiinayaa saddexdaas su'aalood baa iyaga la weydiinaya ardayda secretary way ka duwan yihiin waxaa laga yaabaa in ay kala duwan yihiin saddexdaas su'aalood indhaha ku hay iyagana kasoo jawaab hadhowtana geli inta aadan fadlan waqti geli waxaa laga yaabaa inaad ku fikirtid waxaan inay markiiba dhacayaan safe markaad ku dhufatid dib uu ku haynaya bari ku soo noqo laakiin insha Allah halkaas baa waxaan kusoo koobaynaa haddii ilaahay yiraahdo casharkeenii xiisaha lahaa aan uga faa'iideynaynay qaabka loo xareeyo Turkey scholarship fadlan waxaan kula talinayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed in ay faafiyaan videogan haddii aad wax su'aalo qabtid ama wax caawin aad qabtid fadlan igala soo xiriir emailkan halkan qoran oo ah shafici9@hotmail.com insha Allah si degdeg ah ayaan kugu soo jawaabayaa ama passwordka facebooka oo aan ku ma isticmaalo Shafici Abdi Sulaiman kaasna waad iga soo heli kartaa waxaan jeclahay inaad ka faa'iideen videogan dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo waxaan kaloo ka sii codsan lahaa in aad fadlan u soo gudbisid arday Soomaaliyeed inuu anfaco waa laga yaabaa waayo waxaan wax ku sameeyay bilaa lacag waqti fara badan baan runtii geliyay marka fadlan walaalkaaga ardayga Soomaaliyeed sagana fadlan gaarsii kaliya markaad dhamaysid wax kasta aad soo fiirfiirisid halka waxaad ku dhufanaysaa tigsar markaad akhrido waxaan oo dhan waxaad ku dhufanaysaa submit markaad ku dhufatid waxa ku soo baxaya koodhka ku soo baxa insha Allah waad save garaysanaysaan waana reference numberkaaga hadhowtana waa lagu weydiinayaa fadlan koodhka xifdi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته